بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن داوديال كسو دوادا wararka caawa ee telefishinka HBN barnaamijkan caawa gebi ahaanba waxaynu ku soo qaadanaynaa ma dhaba in shan mar la isku dayay in Israa'iiliyiintu ay burburiyaan masaajidka Al-Aqsa ee barakaysan isla markaasna haatan qatar weyn arintaasi la xiriirta ay soo muuqato maxaa ka jira in arrimahani ay ku lug leeyihiin kooxaha xagjiriinta ee Yuhuudda kuwaasi oo lagu eedeynayo in ay isku dayaan masaajidkan ay burburiyaan oo goobtaasina ay ka dhisaan معبد يهود أي ليهين لوان حويها أمورها دبدة ودك أمريكا مارك روبيو مرء بوقشة كتجي مقالة القدس الله هيستو وحاو رؤوسي راعي رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو وحنا أي تجين جد دولك هوستيسه أو هوسمرة مساجد كبركيسن الأقصى جد كاس أي إمك الاسم أو كسعدة وحليه هرتاسي وحي هلس جنين كرتا مساجد ضد بدن أو أربعها تاريخ ذا يو xaaladda bariga dhexe ka faaloodana waxay aaminsan yihiin in haysashada Israa'iiliintu ay gacanta ku hayaan masaajidka barakaysan ee Al-Aqsa iyo magaalada Qudusba inay xudun arrimahaasi u yihiin colaadda ka aloosan gobolka bariga dhexe oo ugu dambeeyo dagaalkan imika socda haddaba warbixin amuurtaasi la xiriirta oo mas'uul sare oo Israa'iiliya laga wareystay ayaynu barnaamijka caawa idinkugu soo gudbinaynaa محمد عدي ayaa soo akhriyay warbixin amuurtan laga qoray maxamed warkan bal hadii noo faahfaahay iyo isku dayadan la damcay in lagu burburiyo masaajidka Al-Aqsa nin hore gudoomiye ogaan jiray ama afhayeen ogaan jiray baarlamaanka Israa'iil oo Abraham Bragg la yiraahdo ayaa dabool ka qaaday in markay ugu yaraato 5 goor kooxaha xagjirta Israa'iil ay isku dayeen in ay qarxiyaan masaajidka Al-Aqsa iyo deegaanka uu ka kooban yahay ilaa ay laga soo bilaabo 1967 arintan ayaa soo baxaysa kadib markii nin suxufi oo caan ah oo Tucker Carlson la yiraahdo oo Mareykan ah oo waraysi la yeeshay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Israa'iil ugu yaraan 5 goor ayaa la isku dayay buu leeyahay in la qarxiyo masaajidka Al-Aqsa suxufigan caanka ah ee xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa waxa uu leeyahay aniga ma hubo ayuu leeyahay in ay ka badnaan kareen laakiin waxaan ogsoonahay buu leeyahay gudoomiyaha in 5 goor la isku dayay in Aqsa iyo deegaan ku xeeran in la dumiyo wixii laga soo bilaabo 1967 taas oo macnaheedu yahay in arintan laga hadlo maaha oo kaliya buu leeyahay xubnaha taageeraya in masaajidka la burburiyo ay saameyn badan yeelanayaan waxay rabaan in meesha laga dhiso macbad loogu talagalay Israa'iil waxayna rabaan qoladan xag jirka ah in ay meel mariyaan falkaas guraacan sida uu afhayeenka baarlamaanka hadal ku dhigay waa gartay wada sheekaysiga dhex maray marka afhayeenkii baarlamaanka ee hore Israa'iil iyo wariyahan Amerikaanka waxaad moodaa in waxyaalo la yaab leh ka soo baxeen gaar ahaan la yaabka wariyaha qabsaday bal inoo faahfaahay maxamed arintaasi waxa ay ku aadanay Carlson ayaa arintaasi la yaabay waxa uu yiri anigu waa jahwareere ma aan ogsooneyn buu yiri intaas oo sanad aan saxaafad ka shaqeynayay in 5 goor la isku dayay in la dumiyo masjidka Al-Aqsa iyo deegaan ku hareeraysan mar kale ayuu su'aashi weydiiyay waxa uu yiri mu'aamarado badan ayaa jira buu yiri masaajidkaas lagu qarxinayo afhayeenkii baarlamaanka arintaasna way dhacday waxa baraha bulshada aad u dhex wareegaya waraysigan oo Carlson ka qaaday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Israa'iil iyo su'aalahan uu weydiinayo la xiriira masaajidka Al-Aqsa waxaana lagu xiriiriyay 25 maalmood in masaajidka la xiray iyadoo lagu marsiyonayo sabab la xiriira xaalad degdeg ah inay Israa'iil ka jirto waxaana lagu soo beegay marka ay Mareykanka iyo Israa'iil weerar ku qaadeen wadanka Iran February 28keeda Abraham Bragg hadalkiisan ayaa soo baxaya iyadoo si dardargelayso howlaha ay wadaan iyo ololaha ay wadaan Israa'iiliinta xag jirka ah oo lagu xiray masaajidka Al-Aqsa
si looga hor istaago dadka muslimiinta ah inay bishii ramadaan ku cibaadaystaan. taana waxaa barbar socotay dacaayado iyo baaqiyo la xiriira in la qorsheeyo lana meel mariyo sidii lagu meel marin lahaa in masaajidkaasi la dumiyo si macbad looga dhiso meesha. waa gartay marka waxyaalaha kicinta ah ee xitaa ka soo yeeraya mas-uuliyiinta israa'iiliyiinta maxaa ka mid ah oo warbixintu ay sheegayso? siyaasiyiinta Israa'iil iyo ololeyaasha ayaa dardargeliyey inay ka kiciyaan dadka Israa'iiliyiinta ah dacaayado la xiriirta masaajidka Al-Aqsa oo baraha bulshada lagu shaaciyey. siyaasiyiinta midigta u janjeera iyo nin hore oga tirsanaan jiray baarlamaanka oo Moshe Feiglin ayaa bartiisa ku qoray Instagram-ka fursad fiican ayaa jirta buu leeyahay hadda oo lagu wadi karo sidii lagu dhisi lahaa masaajidka, lagu dumin lahaa masaajidka Al-Aqsa oo macbad loo dhisi lahaa. ma jirta ayuu leeyahay wax qarax oo dhacay iyo intifaado. taana macnaheedu waxa weeye in Israa'iil ay tahay awood aad u weyn oo gobolka bariga dhexe ka jirta. wasiirka amniga qaranka ee Israa'iil ee lagu ogyahay inuu yahay nin xag jira bin Gvir ayaa asna kicin wada oo soo saaray video Falastiiniinta lagu caburinayo loona diidayo inay salaada ku tukadaan xataa wadooyinka masaajidka Al-Aqsa soo gala kadib markii laga hor istaagay inay masaajidka gaaraan. waxyaabaha hadda dhaliyey deganaanshaha waxa weeye looga hor istaagay dadka inay masaajidka ku tukadaan bisha ramadaanka in la magacaabay Avishi Field oo ah taliyaha ciidanka booliiska ee deegaanka Qudus oo ay ka go'an tahay asagoo adeegsanaya ciidamo xoog leh iyo xog ururin in uu ka hor istaagayo dadka rabshadaha wada in ay dhibaato abuuraan. waa gartay maxamed, waxaa jirta dhacdo warbixinta lagu xusay oo dhacday inta dagaalkan uu socday, gaar ahaan arrinta la xiriirta gantaalada Iiraan ay soo ridayso. bal arrintaasi inoo faahfaahi iyo waxa laga muujiyey oo lagu tilmaamay khatarta. dhowr maalmood ka hor burbur ka mid ah gantaalada Iiraan ay soo ridayso ayaa ku soo dhacay xayndaabka dhismaha duqa ah ee masaajidka Qudus, meel 100 mitir u jirta masaajidka ayaa ku dhacay. nin suxufi ah oo dadka midigta u janjeera ah oo xag jira Yanon Mogol dhaho ayaa ku dhiirigelinaya dadka inay duqeeyaan ama qarxiyaan barnaamijka lana bartilmaameedsado masaajidka si toos loo bartilmaameedsado. wuxuuna bartiisa X ku qoray Iiraan waxay u baahan tahay 800 mitir inay waqooyiga bari u weeciso duqeynteeda. wuxuuna soo qaatay musawirka masaajidka Al-Aqsa, waana calaamad loo fahmay in uu rabo in burburka uu ku dhaco masaajidka laftirkiisa oo isla markaasna uu dadka ku casumayo in barnaamijka in Iiraan marka labaad ay beegsato masaajidka. wuxuuna leeyahay masaajidka maaha markii kicintani maaha markii ugu horeysay. kicintan waxaa asna qayb ka ah nin xaaqima oo wadaadada Israa'iil ka tirsan oo Burak Moshe la yiraahdo oo soo saaray sawir caqliga samayska uu ku sameeyay ama AI-da dhowr maalmood ka hor oo uu ku muujinayo in saldhig military oo Israa'iil ay leedahay oo masaajidka hoostiisa ku yaalo oo macnaheedu yahay ama uu ku andacoonayo in ay jiraan saldhig ciidanka cirka leeyihiin ee qarsoon ee Qudus hoosteeda ku yaala si meesha loo burburiyo loo duqeeyo. waa gartay laakiin waxaa leeyahay arrintan ma ahan arrin hadda cusub oo muddo ayay soo taagnayd. dad baa ka hadlaya arrintan, maxay sheegeen? dad badan oo ololeyaal ayaa sheegaya hadalkan Abraham Bragg maaha wax cusub. waxayna ku nuxnuxsanayaan Israa'iil sanado badan ayay waday inay masaajidka xoog ku gasho, xanibaadna kusoo rogto. tanna waxay qayb ka tahay qorshaheeda, gaar ahaan ay rabto in xukuumadda mas-uuliyiinta xag jirka ee ku jira
in ay raali geliso. waxayna intaas ku darayaan dhowr goor ayaa bayaano saas oo kale ah ay ku soo celiyeen mas-uuliyiin sarsare oo Israa'iil ka tirsan si ay uga dhaadhiciyaan shakhsiyaadka xag jirka ama ay ugu dhiirigeliyaan inay tallaabooyin qaadaan. tanna waxay muujinaysaa dadka siyaasadda ku howlan ee Israa'iil in ay raadinayaan inay xaqiiqo cusub dhulka abuuraan oo masaajidka al-Aqsa ay waxyeelo gaarsiiyaan si ay xaalad cusub dhulka uga abuuraan oo macbadkooda uga dhistaan. qaar kalena waxay tilmaamayaan waxa ka dhacaya Qudus inayn ahayn wax lala yaabo. Israa'iil mar hore ayay bilowday inay dadka muslimiinta ama dadka muslimiinta ee Falastiiniinta u diido inay Aqsa ku tukato 25 maalmood ayayna arrintaasi socotay. xaalad degdeg ah iyadoo kuma marsoonaysa waxaadna moodaa hadda in xaaladii looga faa'iideysanayo in gacan ku haynta masaajidka inay la wareegto waxay rabtaan ay ka samayso. waa gartay waa yahay dadka marka arrimaha masaajidka iyo goobahan barakaysan u dhaqaaqa maxay ayaguna tahay walaac ay qabaan ama ay ka digayaan? ololayaasha ayaa tilmaamaya arrinta ugu khatarsan ee ku soo beegantay in la xiro xayndaabka masaajidka iyo kicintan la sameynay iyo baaqyadan la leeyahay waa in aan munaasabada diineed ku qabsanaa masaajidka al-Aqsa gudihiisa. waa tilaabo u taagan khatar weyn oo dardar gelinaysa in goobaha barakaysan ee muslimiinta xadgudub lagu sameynayo, khatarna ku tahay qarax weyn inuu ka dhasho arrintan. ololayaashu waxay intaas ku darayaan waxaa barbar socda xiridda masaajidka qoraallo baraha bulshada lagu qaybinayo ee kicin ah oo tartiib dadka xaqiiqo cusub oo masaajidka qusaysa mataqaanaa loo diyaarinayo, iyadoo digniin lagu bixinayo cawaaqibka ka dhasha goobahan taariikhiga ah oo qaanuunkana uu difaacayo in ay dhibaato weyn ka abuurmi karto. tallaabooyinkan Israa'iil ka dhanka ah masaajidka al-Aqsa ayaa socday ilaa iyo inta dagaalka Israa'iil iyo Mareykanka ay ku qaadeen waddanka Iiraan bishii February 28 markaasoo xukuumadda Israa'iil ay ku dhawaaqday in masaajidka oo dhan la xiro si looga hor istaago dadka inay masaajidka ku tukadaan ayadoo ku marmarsoonaysa sababo amni. marka laga gudbo in aad ay u cambareeyeen dalal badan oo muslimiin oo caalamka jira iyo dalalka carabta qaar. waa gartay waya maxamed aan kusoo gabagabayno wadamada muslimiinta oo hadda cambaarinta wada qaar ka mid ah xiriir bay Israa'iil leeyihiin weliba dhanka diblomaasiyadda ah. Jordan oo kale oo weliba Jordan markii uu dhacay dagaalkii 1967 waxaa laga dhigay ilaaliyaha goobaha barakaysan ee masaajidka al-Aqsa uu ka mid yahay magaalada Qudus ku yaal dhankeeda bariga. Masar oo kale xiriir diblomaasiyad bay leedahay Israa'iil. Imaaraadka marba dhow buu ku biiray heshiiska loogu yeero Abraham. Bahrain way ka mid tahay, Morocco way ka mid tahay. marka qatartan weyn ee jirta sidee la isku afajinayaa iyo xaaladahan marka laga watago dhinacyada dagaalka kula jira Israa'iil, laakiin dhinacyadan kale oo xiriir kale leh Israa'iil miyaysa markaasi ka fakarayn halista arrintan ay leedahay? dowladda Netanyahu oo madaxda ka yahay iyo wasiirada xag jirka ee taageeraya xadgudubkaas muddo dheer ayay wateen. dagaalkii duufaanta al-Aqsa waxyaabuhu ka dhashay waxaa ka mid ahaa in Oktoobar bishii ka horreysay 6 maalmood oo munaasabada ah masaajidka inta la xiray in ay dadka xag jirka ku ciyaarayeen. Xamaas warkii ay soo saartay waxay ahayd dab ayay ku ciyaaraysaa Israa'iil hadday joojin weydo waxa ay wado. kadibna waxaa aragtaa dhacay. midda kale Israa'iil waa gardarro garba og weeye oo ay ku taageersan yihiin wadamo badan oo reer galbeeda waxa ay sameynayso, weliba xagga Mareykanka. dhanka carabtana wadamo waxaa jira xiriir hoose la leh oo raalli ka ah in waxa ay rabto inay ka samayso masaajidka al-Aqsa iyo deegaankiisa. waxaana muuqata Iiraan hadda waxyaabaha Mareykanku uu kala hadlay oo uu ajendaha ku darsaday waxaa ka mid ah in
falastiiniyiinta taageeradooda iyo lubnaan taageeradeeda inuu joojiyo umana muuqato iiraan inay hadalkaasi u hoggaansan tahay. dagaalka iiraan la galana waxaa ku xiran waxyaabo badan sida khabiirada hadalku dhigayaan oo la xiriira mustaqbalka masaajidka al-aqsa. wadamo caraba oo sax weeye aad sheegtay ayaa xiriir diblomaasiyado leh wadanka Israa'iil. waxa ay arrintan ka qaban karaan ama ay ka geli karaan lama arko. cambaareyna muddo badan ayaa la cambaareynayay, hadda waxaad moodaa arrintu inay alamtala dhaaftay. waa tahay waynu arki doonaa wixii ku soo